noo jeedin doona muxaadaro ku saabsan muraadafatu yatiim agoonka xaqa uu dadka ku leeyahay iyo uturidiisa iyo waxtarkiisa iyo dadaalkiisa ahmiyadda ay ka leedahay islaamka xaggiisa ayo insha Allah ta'ala nagu baraarujin doona aragtay wixii u baahanaayay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu talagalay anshixi iyo barbaarintii iyo anshixis wanaajintii iyo tacliintii iyo tarbiyadii iyo bulshada islaamka kamid ah qofkan inuu ximan ka noqdo oo maaragtay wadanka isaga Ilaahay markaas ku nooleeyay waajibaadka dhaxyaalo Ilaahay oo maaragtay saaray inuu qof ka qayb qaadan kara noqdo mas'uuliyadda Allah u abuuray qof gudu kara si uu noqdo awal waalidka laga hel saaray hadii waalidkii meesha ka baxo dadka muslimiinta ah oo mu'miniinta oo wax garteen waxa waajib ku ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala kor ka saaray wixii waalidkaas maaragtay oo Ilaahay oo waalidka ugu dhigay markuu noolaayay laga rabay dadka muslimiinta ayaa walaalayaal Ilaahay kor ka saaray sidaas daraadeed waxa mar badan quraanka ka hadlaya dadka waalidiintooda maaragtay adduunka ayagoo joogaan ayagoona da'dooda yar tahay waayeen gacalkii iyo kalsoonidii iyo shinsigii iyo koolkoolintii waalidkooda ka sugaayeen amase ay ka falanaayeen adduunka ka waayeen dadka muslimiinta ah inay u buuxiyaan booskii waalidka maaragtay canuga ka falanaa amase shinsigii amase wahshigii iyo gacalsishadii oo waalidka oo ka sugaay waa in dad muslimiin ah oo u qumaayo u taagan la helo wixii maaragtay waalidka ka hel saaranaay hilkooda gudanayaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala qofka hadii dadka muslimiinta arintaas ay layacaan ay ku dheelaan goodi badan ayaa quraankiis ku sheegay nabigeena alayhi salaatu wasalaamna wax badan oo ka hadlay haday gutaanna wax badan oo khayr ah Ilaahay jannadiisa irhaali ahashidiisa ayuu u balan qaadaya sidaas daraadeed Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu nagu dhahayaa dadka joogo oo Ilaahay nolosha u makaniyay isagoo la hadlaayo kala hadlaayana dadka waalidiintooda dhinteen wuxuuna dhahayaa wal yakhsha alladina kuwii ha ka cabsadaano ha ka yaabaan law tarakuu min khalfihim dhurriya hadii gadaashooda dad maaragtay oo maras ah oo waxba qabsan karin aan talo lahayn awood lahayn oo karti lahayn oo dad da'yar ah hadii ay adduunka ugu tagi lahaayeen oo kuwa dhintay ayaga noqon lahaayeen gadaashooda dadka joogo oo ifka ku haray sidii ay jeclaan lahaayeen in kuwooda inay u maamusaan ay u koolkooliyaan ay u dhaqaalayaan u tartiibiyaan sidii ay u jeclaan lahaayeen kuwa walaalahooda dhaleen oo aabayaashooda dhinteen adduunka joogaan ayagana ha u koolkooliyaan Ilaahay saasuu leeyahay subhanahu wa ta'ala law tarakuu min khalfihim dhurriyatan li'aafan khaafu calayhim sida markii haddii ayaga kuwa dhinti noqdaan ilmahoodana kuwa jooga ay yihiin kuwooda ay in lagu dadaalo u jeclaan lahaayeen oo ugu yaabo lahaayeen ayagana kuwa walaalahooda ha koolkooliyaano ha ka yaabaana la yidhi layacooda iyo maaragtay dandaradooda ha ka danqadaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala war weyn ayuu nagula hadlay isagoo saasna dhahay wuxuu yidhi Allah subhanahu wa ta'ala falyattaqullaha Ilaahay ha ka cabsadaano yidhi dadka nool oo Ilaahay nolosha u makaniyay oo maaragtay ubadka walaalahooda inay koolkooliyaan oo ay xanaanayaan Allahna ha uga cabsadaan wal yaqulu qawlan sadida qowl wanaagsan oo toosan oo hagaagsan ha ku waramaano Ilaahay subhanahu wa ta'ala yeena maaragtay dad wax magarad ah maankooda gaaban yahay kuwooda maaragtay oo ayaga u nool yihiin birrina ayaga laga dili karo masaalixdooda dad aan ka badi karin walaalkooda ayaga la mid ahaay oo maaragtay ubadka isaga leeyahayna kuwiisa ay la mid yihiin muxuu ahaay maaragtay maadaama Ilaahay subhanahu wa ta'ala cadaaladiisa adduunka ugu tagay oo xigmadda Ilaahay adduunka dad u keenay ay ka mataay in la dhinto yeena maaragtay kuwiisa kaliya ha ka fikirina maaragtay walaalkiisna kuwa ilmaha isaga dhalay kuwiisa ka mid yahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala saasuu leeyahay in lagu tacadiyo oo hantidooda iyo xuquuqdooda ma hadli karaan ma dhacsi karaan ma ka hadli karaan oo maaragtay ma u dagaalami karaan waxay lahaayeen darteeda maaragtay looga xaq bursadana Ilaahay waa nagala hadlay wuxuuna dhahay Allah subhanahu wa ta'ala innal ladina ya'kuluna amwala al-yatama dhulma inma ya'kuluna fi budunihim nara wa sayaslawna sa'iran Ilaahay subhanahu wa ta'ala saasu dhahay dadka maaragtay hantida iyo xoolaha iyo maaragtay wixii yatiinta xuquuqdooda ah
u isticmaalayaan amase u dhacayaan dulman si maaragtay xaqdiro ah oo maaragtay xaq bursi ah oo maaragtay tabardaradooda iyo iska hadal la-aantooda ee ugu dhiirinayaan kuwaas wuxuu yidhi alle subxaanahu wa tacaala calooshooda waxay ku cunayaan uu yidhi naarayna gala doonaan. marka intaasaa walaalyaalayaa canaan dadka ugu filan. ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka dardaaramay dadka da'yarta ah waalidkooda dhinteen in xuquuqdooda maaragtay la dayaco. ilaahay subxaanahu wa tacaala aayad kale qur-aanka ka mida wuxuu nagu dhahayaa ara'ayta alladii bismi illahi araxmaan iraxiim. waxaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam lala hadla waxaana lanoo sheegayaa mas-uuliyadda naga saaran dadka hadda aan ka hadlayni oo agoonta ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala naga saaray. wuxuu leeyahy alle subxaanahu wa tacaala ka warramou yidhi alladiiki nabi maxamedaa lala hadla ara'ayta bal ka warram nabi maxamedow alladiiki yukadibu beeninaayo ma arkaysa biddiini maalinta aakhiro madkii beeninaayo bal xaalkiisa ka warran. ilahay saasuu leeyahy ara'ayta alladii yukadibu biddiin keeway marka ninka aakhiro beeninaayo oo bal xaalkiisa ka warran la leeyahay waa nin caynka ah saw yaala ya fadalika kaas oo aakhiro aan rumaysanayn ilaahay muxuu leeyahay alladiiga waa yaducu lyatiima yatiinta ku qalafsan. taasay ku fasiraan mufasiriinta bimacnaha waxay yidhaahaan yaducuda waxaa loo wadaa ninkii yatiinka tukantukiyo bimacnaa mase qadaanqadiyo kala tuuro maadaama nin yar yahay xooggiisa uu dhaman yahay garaadkiisa uu dhaman yahay fikirkiisa uu gaaban yahay maxaa la ii dulmiyey maxaa igu qabatay uuna dhihi karin waa iska handadaho maaragtay waa ku qallafsan yahay. ninkii yatiinku ku qallafsan qowl ha ugu qallafsanaado oo ficil ha ugu qallafsanaaday waa kan aakhirada rumaysanayna kaasoo yidhi ilaahi subxaanahu wa tacaala ma arkaysa alladiiki waa yidhi yaducu lyatiima yatiinka ninka ku ad adag oo kala tuuro oo maaragtay xusuuliyo gacan badaxeeyo oo handado oo guulguuli waayo ilaahi subxaanahu wa tacaala. ninkaasa ninka aakhirada rumaysanayn xaalkiisa allow sahalka yahay xaaladihiisa aan qiyaasanayn oo meel mugdi a ku socdo ninkaasoo yidhi ilaahi subxaanahu wa tacaala oo walaa yaxudu aan ku guubaabinaynin calaa dacaami lmiskiin miskiinta iyo dadka tabarta daran oo yatiinka uga horreeyo in wax loo qabto oo la tartiibiyo mas-uuliyaddooda loo qumo aan maaragtay waxba aan ku guubaabinaynin masaalihidiis gaarka iyo tan isaga u gooniya ka hormarsana. ninkaas ayaa ninka aakhirada rumaysanayn yowmuddiinka kan beeninaay kaas waa ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaasuuna dhahay. sidaas oo kale walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna leeyahay isagoo maaragtay dadka muslimiinta ah ducafadooda guud ahaan dadkooda taagta daran ilaahay dadka waa kala roonaysiiyey. ilaahay asbaabaha waa u kala tamkiinta dadka waa u kala roonaysiiyey. nin kartidiis iyo xooggiis iyo ku jooga adduunka ma leh. nin maaragtay taladiis ku nool ma leh. nin isaga maaragtay xooggiis taajir ku ah ma leh. ilaahaasa dadka kala fadalay wallahu fadala bacdakum calaa bacdin fi risq. ilaahay qaarkiina qaarka kale ayaa risqiga ka fadalay. maxaa yeelay ilaahay fadligiisa wax lagu helaa. asbaabaha dadka dhan waa u wada taagan yihiino nin subaxi waaga markuu baryo aan ordayna dadka waa ku yaryahay laakiin sidii loo ordo wax looma helo maadaama ilaahay marka dadka kala fadlilay. dad ducafa ah oo maaragtay taag daran dadka ku jiraan guud ahaanba io gaar ahaan ilaahay dadka waa la hadlay. kuwa maaragtay alle ku manadaystay waxyaabaha fadligiisa xuquuq oo dadka oo laga itaanroon yahay aan lagu lahayna ilaahay saaray. marka alle wuxuu leeyahay faama saa'ila faama alyatiima falaa tanha maxay ahayd faama alyatiima falaa taqhar waama saa'ila falaa tanhar soo mahino wuxuu yidhi alle subxaanahu wa tacaala suuratu duxa aayaddii ku jirta faama alyatiima ninka agoonka aho aabalaawaha ah falaa taqhar ma arkaysa ha qaharinin oo ha dhibina ha dulaynin. ilahi subxaanahu wa tacaala saasuu leeyahy faama saa'ila falaa tanhar ninka miskiinka ahoo muslimiinta guud ahaan oo tabarta daran isagana ha horarino ha gurrini saasay dhihi jireen culimadu. gurrisaa la yidhaha oo maaragtay hogoo isha il adag ha ku daymoonino war naga tag waryaa ha dhihin oo si qabooban oo raxmad ku jirto qalbi furanaan leh ula hadla agoonkana qalbigiina u jilciya. cumuuman ilaahi subxaanahu wa tacaala muxuuna leeyahy cumuuman
إلهي سبحانه وتعالى محون له واخفض نبينا سيقول الله الله أننا لنولجه الله محون له واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين نبينا لقول عليه الصلاة والسلام قرب كاغور رارعي بمعنى قلب نقول إيو أرحم إيو نيد فرناشو كل معامل وكل دغن ذاتك مؤمنين تأه قارنهان مركي تقدرينهين باب الأولي كسيهين ولا الياساس درادد نبينا عليه الصلاة والسلام وحونا نهايا أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة تاسو لي نبي عليه الصلاة والسلام حديث البخاري يقول لنا أنيق إيو نينك كفالة قاضايو مسؤولية ديس وقمايو محوها هاي مارتي حوليهيس إيو وقتيس إيو فكركيس كو عاونايو دادك أغونتا والد كود وايين جنة دحداد كهاتين أو النبي عليه الصلاة والسلام سيدي لبدان فرودان محوكو ديا نبي وحو إشارة لي فرتيس أو وسطة فرت الدير إيو فرتيس السبابة دا ولبدا مارتي سولكو كحيغان أيام مارتي لبدا سو أو تاغية للنبي عليه الصلاة والسلام وحيرنا دحدودا أيو كالبنايي marka macnaha sidaasaan isugu dhownahay aniga iyo ninka muxuu ahaay maartay dadka adoonta ka faala qaaday jazakumullahu khayran ayado dadka muslimiinta dhamaan xuquuqay isku wada leeyihiin dadka ducafada ay xuquuq khaas ay leeyihiin dadkan dayarta aqligooda iyo xoogooda wali dhaman yahay tarbiyadooda iyo waqtigii mustaqbalkooda la dhisi lahaay ayagoo ku aadan dadkii arrintaas u heesaaranaa ilaahay ka waday waxa waajib ku ah dadka muslimiinta oo ilaahay agtiisa darajo weyn ay uga helayaan in waajibkaas ay u qumaan haddii u quma waayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ciqaabo ugu ballan qaadaya arrintaas waa arrin dhibaato lagala kulmaayo wa jazaakum allahu khayran sidaas daraaddeeda ilaahay inaan ugu mahadino maadaama annaga kuwii hadda jiro nool aan nahay ilaaha noo makaniyey nolosha bifadli illaahi waraxmatihi aan ku nool nahay dadka walaalaheenoo nala mad ahaayay oo dhinteen oo aakhiro jiraan ayagoo maaragtay ilmahoodii ubadkooda waxa kuwa anigoo nool hadda aan u taaganahay u baahan yihiin oo kale u baahan yihiin nala joogaan in aniga waajibkaas maaragtay isku hel saarno oo naadada ama ballanqaadka iyo wacdiga iyo waciidka allana aan u fiirsano arrintaas ku saabsan arrintaas laga maarmaan haddii aanu soo noqdo dhinac kale مثلا waxaa jirtay waqtiyada hore nabigeena calayhi salaatu wasalaam laga soo bilaabo ilaa in badan oo qarniyaal ah muslimiinta waxay lahaa jireen mas'uuliyad iyo nidaam iyo kala dambeyn iyo maaragtay ay kala hagaday lahaa jireen markaas oo kale dadka mas'uuliyadda leh oo muxuu ahaayay maaragtay hilka muslimiinta haayo adeega guud u hel saaran ayaga maaragtay dadka aynkaan ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka oo in la daneeyo oo nooga tarmaamay oo na amray in la dulmiyo lagu xadgudbana ilaahay naga canaantay ayaga u taagnaa jireen ayaga maaragtay aabaha bulshada ahaa jireeno ayaga maaragtay danaha guud iyo masaalixda ummadda haga jireen maantadan oo kale hadda aan joogno lama hayo arrintii ayada ahayd lama hayo معلم شيخ إسحاق معلم حسن محاضرة قيم كهذا كسر سنة معرتي أقوم كمعرتي كلمين تيسي وترد ديسة كنت يحرم لين يقف كستوى نقام ده أما في صداع عجلتنا ما لقي شقط كبا إن الجيرين أو السجيو المن وكتر الدوانو مركا سدوا ساق النار والشاقبة وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه فليتقوا الله وليقول ساسا ولا نقل السجيا إن المهاس يو أنت خلاص أن مالك الجرتبة قف كستا إنه تاسكو دالو شيخنا خير الله كسيو كلمة دي آت كأو قيمها بندر ونصر الجديد